kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka habeenimo ee Walwal TV qodobada ugu doorka roonna waxaa kamid ah bangiga adduunka oo ansixiyay malaayiin dollar oo lagu caawinayo Soomaaliya guddoonka golaha aqalka sare baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo soo bandhigay xeerka dhamaystirka doorashooyinka dalka gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo laga gudbiyay mooshin dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho oo ka qayb qaadanaya maalmaha xurriyadda ee fooda nagu soo haysa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo dagaalyahanada al-shabaab kala wareegay deegaanada ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose wararka dabadda waxa qayb ka Hindiya iyo Pakistan oo xiisad xooggan ay u dhaxayso isku soo noqod wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobada hordhacooda daawateen oo intaasi ka faahfaahsan aan ku bilownay bangiga adduunka ayaa waxa uu ansixiyay 55 milyan oo lagu caawinayo Soomaaliya xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxay dadaal xooggan u gashay sidii dhaqaalaha dalka Soomaaliya dib loogu soo celin lahaa iyadoo cudurka dilaaga ee COVID-19 uu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka Soomaaliya bangiga adduunka ayaana Soomaaliya u ansixiyay lacag dhan 55 milyan oo dollar si loogu kaabo miisaaniyadda dawladda maadaama dakhliga gudaha uu yaraaday isla markaana xukuumadda ay wajahayso dhibaatooyin dhaqaale oo soo wajahay lacagtan ayaana waxay tahay caawimaad dawladda dhexe ee Soomaaliya looga garab siinayo saameynta suuq xiranka uu keenay cudurka dilaaga ee COVID-19 oo dunida ku soo ifbaxay bishii December ee sanadkii hore isla markaana Soomaaliya soo gaaray bishii April ee sanadkan 2020 wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa waxa uu soo dhaweeyay garab istaaga bangiga adduunka ee Soomaaliya garab istaaga bangiga adduunka oo garab istaagayo Soomaaliya kaasoo uu sheegay in lagu soo beegay xilli xaaladda dalka dhanka dhaqaalaha uu saameeyay cudurka dilaaga ee COVID-19 wasiirka ayaana waxa uu sheegay in uu arintaasi aad ugu faraxsan yahay bangiga adduunka ayaana waxa uu ansixiyay lacag gaaraysa 55 milyan oo lagu caawinayo dalka Soomaaliya bismillaahir rahmaanir rahiim waxa maanta la ansixiyay kabkii miisaaniyadeed ee dalka lagu kabayay banka adduunka ku kabayay oo 55 milyan ah aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay habka uu noola shaqeeyay adduunku gaar ahaanna bangiga adduunku noola shaqeeyay iyo hay'adda lacagta adduunka IMF lacagtana markaa waxay ka mid tahay waxyaalihii wanaagsanaa ka soo baxay teen cafintii iyo shaqadii aan soo galay dheereyd bay runtii ka turjumaysaa waxa weeyaan wax dalka oo dhan ka dhaxeeya 55 ama dawladda federaalka ahaato ama dawladaha xubnaha ka dalka dawladda federaalka ahaato intaas ay tahay waxa ay ku xidhan tahay waxa weeyaan budgetkii hoos u dhiciisii xanuunkan inkaarta qaba oo keenay dakhliga hoos u dhacay caawimo ay kabaysa weeyaan kab ah marka runtii aad baan ugu faraxsanahay waa ka soo shaqeynay waa la soo shaqeynay waxaan isla garanay marka kabka loo baahay inta yahay imika haddana dhawaan waa ku noqon doonaa iyadoo la eegayo habka COVID-19 aw socoto iyadoo la eegayo marka waxay noo ballan qaadeen intaas si aan u socono reformka wadnaba in World Bank iyo African Development Bank iyo IMF iyo daba joogaan iyo EU saddexda afartaas ugu waaweyn runtii marka dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa inaan arrimaha aad uga shaqeynayno aan doonayno in si fiican loo hana qaado waxaan ku tala jirnay waxa weeyaan intaan xanuunkan inoo imanin inaan isku filaasho gaadhno oo really inagu aan ku filaan karno kharashka dawladdan lagu hangareynayo inaan ugu filaan karno haatana taas madaxayga ku jirta dawladda dhexe ee Soomaaliya ayaa hore waxay waday dadaalo looga shaqeynayo sidii deynta looga cafin lahaa dalka Soomaaliya waxaana xukuumadda federaalka Soomaaliya oo uu hogaamiye ra'iisul wasaare Khayre ay ku guuleysatay in dalal dhowr ah iyo hay'ado maxalli ah ay deymaha ka cafiyaan dawladda Soomaaliya xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana waxay dadaal xooggan ugu jirtaa sidii inta yar ee lagu leeyahay dalka Soomaaliya looga cafin lahaa cudurka dilaaga ee COVID-19 ayaana saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha dalka iyadoo xukuumadda federaalka Soomaaliya ay sheegtay
in cudurkani uu saameyn ballaaran ku keenay dhaqaalihii dalka. gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa laga gudbiyay mooshin. Macow Maxamed ayaa qodobka noo sii dheereynaya. xildhibaanada golaha shacabka dowladda federaalk Soomaaliya ayaa maalintii shanaad oo xiriir ah waxa ay ku lahaayeen xarunta Villa Hargeysa ee magaalada Muqdisho kulan. xildhibaanada ayaa maalintii labaad waxa ay ka doodayaan xeerka matalaadda gobolka Banaadir ee aqalka sare. hase yeeshee inta uu kulanka socday ayaa mooshin waxaa loo gudbiyay guddoonka golaha shacabka. xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in guddoonka golaha shacabka ay u gudbiyeen mooshin lagu dalbanayo in kuraasta aqalka sare oo ku matalayo gobolka Banaadir ay noqoto 13 senatar. waxaana mooshinkaasi saxiixay ilaa iyo 130 xildhibaan. muddooyinkii la soo dhaafay ayaa waxaa socotay dood ku saabsan matalaadda gobolka Banaadir iyo kuraasta ay ku yeelanayaan aqalka sare, taasoo hore loo soo gudbiyay in 7 senatar ay ku yeeshaan aqalka sare matalaadda gobolka Banaadir. xilli ay nagu soo food leedahay maalmaha xurriyadda ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka socda u diyaargarow xoogan oo arintaasi loogu diyaargaroobayo. dhalinyarada ku dhaqan gobolka Banaadir ayaana waxa ay ka qayb qaadanayaan dib u dhiska lagu sameynayo goobaha danta guud ee dowladda dhexe ee Soomaaliya ay dib u dhiska ku sameysay. dhalinyaradan ayaana waxay qayb ka yihiin u diyaargarowga maalmaha xurriyadda. Saacadiya Cali Maxamed ayaa qodobka noo sii ambaqaadaysa. diyaargarow heer sare ah ayay ku jirtaa magaalada Muqdisho iyadoo ay fooda ku soo hayso maalmaha xurriyadda ayaa waxaa sare loo qaadayaa bilicda caasimadda oo ay ka mid tahay goobaha danta guud sida taalooyinka, madxafka iyo maktabadda, tiyaatarka iyo goobaha kale ee danta guud. ayaa waxaa isku howlay dhalinyaro iskood isku soo xilqaamay kuwaasi oo ka qayb qaadanaya qurxinta caasimadda, waxaana la suray calanka Soomaaliya goobaha ganacsi iyo goobaha loo dalxiis tago iyo taalooyinka. waa kan qaar ka mid ah dhalinyarada oo ka warbixinaya hadafka iyo kaalinta ay ka qaadanayaan bilicda caasimadda. dhalinyaradan ayaa garab u noqday guddiga qabanqaabada maalmaha xurriyadda oo ku howlan soo celinta bilicda caasimadda, waxaana shacabka reer Muqdisho lagu arkayay iyagoo dhisaya goobaha danta guud maadaama ay fooda nagu soo hayso maalmaha xurriyadda. waan ku faraxsanahay 1 Luulyo iyo 26 Juun maalin ummadda Soomaaliyeed xorowday inay tahay. waa soo dhaweeynaa, shaqada waa u helanahay. ummadda Soomaaliyeed waxaan ku baaqaa inay nabadda qaataan, dalkooda dhisaan, laamiyadooda iyo dhulkooda iyo dhirtooda, geedaha lagu beero meel waliba. daljirka Daasoon aan joognaa waxaa ka haynaa shaqo oo biliceyna oo rinji iyo dhismo iyo geed abuurin ku saabsan maadaama lagu guda jiro maalmaha xurriyadda sida 26 Juun iyo 1 Luulyo. marka waa soo dhaweynaynaa inaan dhalinyaro Soomaaliyeed aan nahay dalkeena wax alaala waxa ka qaban karna aan ka qabanno, saacad walba u taaganahay, waxaana diyaar u nahay inaan waqti walba aan garab siino. waad aragtaan quruxda magaalada Muqdisho ka muuqata, waad aragtaan maanta sida ay u eg tahay magaalada Muqdisho. waxaan diyaarinaynaa goobihii danta guud si isxilqaan ah maadaama aanan ur dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalbile team maanta waxay diyaarinayaan daljirka Daasoon maadaama wadanka isxilqaan lagu dhistay madaxweynaha jamhuuriyadda. anakan waxaan qayb ka nahnay dhalinyarada Soomaaliyeed. ma ahan markii ugu horeysay ee lagu arko magaalada Muqdisho dhalinyaro iskood isku soo xilqaantay oo qurxinaya bilicda caasimadda magaalada Muqdisho. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa dagaalyahanada Al-Shabaab waxa ay kala wareegeen deegaanka lagu magacaabo Jilib Marke ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Jaafar Maxamed Cali ayaa warka noo sii ambaqaadaya. ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee Danab iyo Gorgor oo howlgallo ka waday muddooyinkan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose horena Al-Shabaab uga wareegay deegaanada Jilib Marko iyo Gandarshe ayaa wali wada howlgalladooda ay kaga hortagayaan Al-Shabaab. saraakiisha ciidanka waxa ay sheegeen in howlgal ay ku soo qabteen rag la xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab kuwa oo haatan ay marka la eego ku socdaan baaritaano lagu wado si loo ogaado inay ka tirsanayeen Al-Shabaab. deegaanada Jilib Marko iyo Gandarshe ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa dhowr jeer waxaa la wareegay ciidamada dawladda Soomaaliya, ha yeeshee waxaa dib ula wareegay Al-Shabaab. sidoo kale maalin ka hor ayay dib ula wareegeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo hadda ku sugan. ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa howlgallo ka waday muddooyinkii dambe gobolka Shabeellada Hoose, waxaana ay la wareegeen deegaano dhowr ah iyagoo ballan qaaday in ay sii wadi doonaan howlgallada ka dhan Al-Shabaab si ay uga xoreeyaan qaybaha ay ka joogaan gobolka Shabeellada Hoose Al-Shabaab. ugu dambeyntiina xiisad xoogan ayaa waxa u dhaxaysa
dalalka Hindiya iyo Pakistan kadib markii dalka Hindiya laga masaafuriyay shaqaale ka tirsan safaaradda Pakistan ay ku leedahay dalka Hindiya. Hindiya ayaa wadankeeda waxa ay ka ereysay kala bar ka mid ah shaqaalaha safaaradda Pakistan ay ku leedahay caasimadda dalkaasi ee Delhi kadib markii ay ku eedeysay in ay ku hawlanaayeen falal basaasnimo iyo wada shaqayn ay la lahaayeen argagixisada sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi. Dowladda Hindiya ayaa sidoo kale waxa ay dhimi doontaa shaqaalaheeda ku sugan safaaradda ay ku leedahay magaalada madaxda Pakistan ee Islamabad sida ay shaacisay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Hindiya. ma jirto jawaab ilaa iyo hadda si degdeg ah uga soo baxday dhinaca dowladda Pakistan oo arintan ku saabsan xiriirka u dhaxeeya labada wadan ee ku hubaysan nukliyeerka ayaa meel xun gaaray kadib markii ay Hindiya 3 isbuuc ka hor wadankeeda ka eriday laba ka mid ah shaqaalaha safaaradda Pakistan ee ku leedahay dalka Hindiya. labadaasi qof ayaa waxaa lagu eedeeyay in ay isku dayayeen ururinta xog ku saabsan dhaqdhaqaaqyada militariga dalka Hindiya. warbaahinta Hindiya ayaana waxay sheegtay in talaabadan ugu dambeysay ay qaaday xukuumadda New Delhi oo ay timid kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in laba shaqaale oo Hindiya lagu waxyeelay magaalada lagu magacaabo Islamabad. isbuucii la soo dhaafay dowladda Hindi waxa ay dhigeeda Pakistan ku eedeysay in ay afduubatay labadaasi nin, laakiin Pakistan ayaa waxay dhankeeda sheegtay in raggaasi ay u xiran yihiin booliiska kadib markii gaari ay wateen uu jiray qof wadada marayay sida ay sheegeen booliiska dalkaasi. guud ahaan daawadayaal warkii habeenimo kala socoteen Walwal TV xilligan waa naga inta war noocan oo kale aynu dib ugu kulmi doono tan iyo kulanti dambe. Amaan Allah.